40 sano ka hor oo ku beegan bishii July 20keedii 1981 dalka Soomaaliya waxaa ka dhacay shil diyaaradeed kii ugu xumaa ee taariikhda kaas oo sababay dhimashada ilaa 50 qof kuwaasoo 9 ka mid ah dadkii geeriyooday ay ahaayeen qoys isku mid ah. diyaaradda nooca Fokker F-27 kuna diiwaan gashanayd SAY ee shirkadii Somali Airline oo ku socotay magaalada Hargeysa waxay ku dhacday xerada Hiloweyn ee agagaarka magaalada Balcad daqiiqado markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha Muqdisho. shilka diyaaradeed waxaa ku dhintay 44 qof oo ahaa rakaabkii diyaaradda saarnaa iyo 6 qofood oo ka mid ah shaqaalihii diyaaradda. diyaaraddaas ayaa waxaa kabtan ka ahaa Allah u naxariistee Cabdi Maxamed Maxamuud oo loo yaqaanay Kabtan Dhafuuji waxaana kalkaaliye u ahaa Cali Umul. waxaa sidoo kale la socday 4 ka mid ah howlwadeenada diyaaradda oo kala ahaa injineer Cali Foolcade, Abshiro iyo Fuaad. sidoo kale dadkii ku dhintay diyaaraddaas ayaa waxaa ka mid ahaa Generaal Omar Cismaan Diiriye oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan 3 ay walaalo yihiin, 4 ka mid ah caruurtiisa iyo xaaska generaalka oo uur lahayd. runtii waxay ahayd masiibo aad looga naxo in 9 isku wada qoys ahi ay halkaas ku wada dhintaan. waxaa sidoo kale xusid mudan qaabka uu diyaaradda ku raacay injineer Cali Foolcade oo sida la sheegay markaas shaqada soo galay. sida caadada ah injineer looma baahna inuu raaco diyaaradda maadaama injineer kale uu ku sugnaa magaalada Hargeysa, laakiin waxaa codsaday Kabtan Dhafuuji oo isna sida aynu soo sheegnay shilkaas diyaaradeed ku geeriyooday. qoraal laga soo saaray baaritaan la xidhiidha sababta ay u dhacday diyaaraddaasi ayaa waxaa lagu sheegay in ay diyaaraddu gashay ama ay la kulantay robab watay dabaylo xoogan oo aroortaas ka dhacayay agagaarka magaalada Muqdisho. inkastoo ay su'aalo ka yimaadeen baaritaankaasi maadaama bisha July ay ku beegan tahay xilliga xagaaga oo robab xoogan aysan ka di'in agagaarka magaalada Muqdisho. 8 sano kadib bishii June 28keedii 1989 ayaa Fokkertii kale ee shirkadii Somali Airline ku dhacday agagaarka magaalada Hargeysa oo sida la sheegay ay soo rideen jabhaddii SNL oo markaas dagaal kula jirtay dowladdii Maxamed Siyaad Barre. diyaaraddaas waxaa ku geeriyooday 30 qof oo isku jiray rakaabkii iyo howlwadeenadii diyaaradda. Khaliif Ismaaciil, Muqdisho.